adii ninaan saaxiib ahaan maxaa la yiraahdaa hadda koor waxa dhacday waxaan baray maxaa la yiraahdaa ii sheeg gabar oo saas oo kale macnaha aan sukaansan jiray gabadhii yani markaan baray meeshii laga rabay maxaa lahaa ninkii gabadha inuu macnaha dimaashinimo u xiriiriyo oo hebelka maarta xabadii waa ku dayay waa la degay macnaha ma fahantaadin yaa marka xaafadda dhan waa laga camirto waxa la war ninkii naagta waa laga dulqaado maarta hebel ka dulqaado macnaha ani marka waxaan ku dhahay calafkiisa ay heedaan macnaha wax kala sheegay ma hayo yaa marka waxa ay calafkiisa ay heed macnaha caadi waa ilaaha calaf ugu daray marka ninkaas dani odayga saaxiibkii ahaa waxa ku dhiirigelin jiray maarta bacdana gabadhaas aniga aqaanay gabar dawcad wanaagsan ay ahayd inuu aad ula macaamilo inuu xushmeeyo inuu tixgeliyo intaasaan maarta kala hadli jiray laba gabar aan isla baranay gabdhihii ayaga ahaa labadiina markaan sheekaysanay oo aan maarta kaftanay oo cabaar xariifka saaxiibkii xabadii uu rabay macnaha xageeyay macnaha soo martay yaa tii aniga macnaha aan rabay oo macnaha marka hore aniga aan isbaranayna aniga maarta xageey gartaa inay soo marto laakiin tii kale ayaga maadaama ay yaqaaneen tii kale aan culays soo saartay ninka saaxiibkii dacwo ii qabsaday wuxuu yirnay xabadeedii adaa dhacaniyo marka aniga waxa arnay aniga waxba kaama dhicin maarta nin saaxiibkii tahay yani hadii adi asaas aaminsan taana xabadda waa ku deenayaa marka gabadhii xaqiiqatan waxa dhacday inaan maarta ka tagi waayo ay tiraado macquul ma yaa marka wax diiday iyo wax jeclaado mujid ah nolosha sida u samaysan mugtaa waa la ballamay aniga markii la ballamay maxaa la yiraahdaa ii sheeg waa xasuustaa waqti hadda adiga cabaar laga joogay ahayd markii la ballamay qofkaan ahayna marka hore waa is sheegay mugtaa laakiin leegama aaminin macnaha nin oo yani xoogo aqoon yar ka muuqato ilbaxnimo ka muuqato maarta telefoon isticmaalayo markii oo magaalada iska wareegay iska baashaalayo markii maarta ii waran fiicanta la yiraahdo adiga miyaha oo la xaqiijiyay waa la gooyano yaa birta la igu dhufto mugtaa wallahi horta nin dhalinyaro ah oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg oo magaalo joogay oo maarta ii sheeg haasawaha xaqiis marka loo fiiriyo dhinacyo kala duwan ka fiirnaa aniga kow mar waxaan ka fiirnaa aniga shakhsiyadeeda gaarka ah dabcan mar dhinac kale waxaan ka fiirnayaa dadka maarta aniga asaagayga ah oo maarta ii sheeg naafada ah runta marka horta ka hadlo dadka naafada oo wadanka ku nool yani maarta culays badan ay qabaan maarta kalsooni oo maarta ii sheeg ay qofka ay yihiin markay timaado inay ka hadlaan isma sheegi karaan waa isma muujin karaan hadda moogtahay haasaabo waa tarabatay markii face tahay waaba la isu jeedaa laakiin mararka qaar waxaa dhici kara by phone by social media maarta wax in lagu kulmo marka maxaa la yiraahdaa waxaan ku sheegayaa aniga waxyaabaha runtii soo mara waxa ka mid ah face marka laga tago oo sheekada ay by phone isku ragto dad baa baranaysa dad baa la haasaabaysa يعني waxyaabaha cajiibka oo soo maray waxa kamid ah qofkan inaad adiga naafatahay oo arag laada si aad u sheegtid mararka qaar waa kuwa adkaanaysa mugta marka waxyaabaha soo dhowr dhinac ka fiirna mar waxa soo martay waa la ballamay aniga markii la ballamay maxaa la yiraahdaa ii sheeg waa xasuustaa waqti hadda adiga cabaar laga joogay ahayd markii la ballamay qofkaan ahayna marka hore waa is sheegay mugta laakiin leegama aaminin macnaha nin oo yani xoogo aqoon yar ka muuqato ilbaxnimo ka muuqato maarta telefoon isticmaalayo markii oo magaalada iska wareegay iska baashaalayo markii maarta ii waran fiicanta la yiraahdo adiga miyaha oo la xaqiijiyay waa la gooyano yaa birta la igu dhufto mugtaa marka aniga iska mawaalin brother ma fahamta caadi iska dhigay marka waxaan dhahay waa way dhacdaa yaa laakiin qoftii maxaa la yiraahdaa ii sheeg waxaan ku dhahay dhib ma laha waxa kale runtii aan ku hayaa oo sheeko runtii iyadana cajiib ahayd adiga ninaan saaxiib ahaan maxaa la yiraahdaa hadda koor waxa dhacday waxaan baray maxaa la yiraahdaa ii sheeg gabar oo saas oo kale macnaha aan sukaansan jiray gabadhii yani markaan baray meeshii laga rabay maxaa lahaa ninkii gabadha inuu macnaha dimaashinimo u xiriiriyo
oday hebelka maarta xabadii waa ku dayay waa la degay macnaha ma fahantaadin yaa marka xaafadda dhan waa laga camirto waxa la war ninkii naagta waa laga dulqaado maarta hebela ka dulqaada macnaha ani marka waxaan ku dhahay calafkiisa ay heedaan macnaha wax kala sheegay ma hayo yaa marka waxa ay calafkiisa ahayd macnaha caadi waa ilaaha calaf ugu daray marka ninkaas dani odayga saaxiibkii ahaa waxa ku dhiirigelin jiray maarta bacdana gabadhaas ani aqaanay gabar daacad wanaagsan ay ahayd inuu aad ula macaamilo inuu xushmeeyo inuu tixgeliyo intaasaan maarta kala hadli jiray aniga in wax laga kor qaadi karo anna aan wax dadka kor qaadi karo waa aaminsanahay aniga laakiin waa laga kor qaaday yaa marka waxa kale ani hadda kor igu dhacday ninaan saaxiibnahay iyo aniga laba gabdhood aan isla wada baranay ma fahanti mugta dhinaca oo haasawaan ku jira mugta ana xaggaasna maarta xogo waxa aaminsanaa dadka qaarna aaminsan inaan macallin ku ahay aaminsanahay marka laba gabar aan isla baranay gabdhihii ayaga ahaa labadeena markaan sheekaysanay oo aan maarta kaftanay oo cabaar xariifka saaxiibkii xabadii uu rabay macnaha xageeyay macnaha soo martay yaa tii aniga macnaha aan rabay oo macnaha marka hore aan isbaranayna aniga maarta xageey yartaa inay soo marto laakiin tii kale ayaga maadaama ay yaqaaneen tii kale aan culayska soo saartay ninkii saaxiibkii dacwo ii qabsaday wuxuu yirnay xabadeedii adaa dhacaniyo marka aniga waxa arnay aniga waxba kaama dhicin maarta nin saaxiibkii tahay yani haddii adi asaas aaminsan tahayna xabadda waa ku deenayaa marka gabadhii xaqiiqatan waxa dhacday inaan maarta ka tagi waayo ay tiraado macquul ma yaa marka wax diiday iyo wax jeclaada mujid ah nolosha sida u samaysan mugtaa dhinac walba waa ka soo arkay